Bismillah, assalaamu calaykum asxaabteyda soo dhawaada. Maanta waxaa sameysanaynaa rooti iyo chicken. Waxaa noo diyaarsan 3 bakeeri oo bur ah. Waxaa kusoo darsanaynaa qaadi iyo bar oo sokor ah. Sidoo kale waxaa kusoo darsanaynaa leebito 1 qaado iyo haaf. Saaragtaanba qiyaastana la socda insha Allah. Waxaa kaloo kusoo darsanaynaa muhiimna ah in lagu soo darsado rootiga 2 xabo oo ukun ah. Laakiin ukunta intaan ku darsanin ayaan waxaan kusoo darayaa cusbo. Waxaa rabaa qaybta qaleelka inaan israacsiiyo, ma fahanteen? Kadibna aan isku labo ukuntiina aan kusoo darsado 2 xabo ukun aan ku darsanayaa 3 xabo oo 3 koob oo bur ah markuu yahay 2 koob oo bur ah hadaa sameysanaysidna 1 xabo ukun inaaf way kugu filan tahay. Waxaan kusoo darsanayaa saliid caddeey isticmaala subag hadaa haystidna waa okay. Saliid waxaa isticmaalayaa marka aniga 2 qaado iyo bar, maadaama aan sameysanayo 3 bakeeri oo bur ah. Waxaa halkan ku haystaa sidoo kale aan ku qasanayaa caano. Waana muhiim caano inaad ku qasatid rootiga. Haddii aadan caanaha ayagoo qasan aad ka wahsanaysid, budo ahaan ku darso, biyo qandacayna ku qaso rootiga. Inta aanan gacanta la gelin ama aanan xashin, waxaa sameynayaa qaandada ayaa ku labayaa si uu isku dhex galo waxyaabihi aan isku dardaro dhan. Muxuu ahaa rootiga 2 bakeeri ama 2 koob ka yar lagama sameyn karo. Waxa ka soo baxayaaba ama 1 xabo ama 2 xabo oo waxa kaaga soo baxaya rooti ah. Marka 2 bakeeri iyo wixii ka badan. Bakeeriga shaaha waa waxa ugu fudud dadka dhan isla haystaan ama isla fahmi karaan qiyaastiisa. Saas darteeda marka anaga waxa waaye ani ahaan kala jeedaa aan u qaataa mar walbo. Sida caadiga oo loo xashano dhowr jeer inoo wax xashayna waa soo geliyay. Qaabkaas oo xashayna rootigu wuxuu dheeraad kaga yahay waa inaad zaad u jilcisaa. Zaad u jilcisaa kama wada bibi inaad ka dhigtaa, laakiin xashitaanka markii aad xashaysid waxyaabaha kale waa soo geli jiray iyo hadda markii aad feeriso rootigan texture-kiisa ama taabashadiisa 2 ayay kala tahay soo maaha. Qaabka u jeedin aad u jilicsan yahay. Marka waxaan soo saartay burfidiska. Intaan soo saaran waxaan kaga hormariyay bur si uusan iiga dhigdhigin rootiga meesha asigoo ii saarnaa. Marka waxaa rabaa inaad gacanta si fiican uga xasho. Makiinadaha waxa lagu qasaa hadaa haysatidna waaba ka sii fiicanta oo maasha Allah waaye. Laakiin aan mar walba waxaa jeclahay gacanteeda inaad ku xashto. Hadaad haysaninna gacantaada inaad ku xashatid dantaaba ku geynayso soo maaha. Marka gacanta uga caana maal. Haddii aad dareentid inuu kugu dhigdhigayo xoogaa yaroo bure iskaga dar si uu gacanta kaaga foqo oo aadna si fiican u qasatid rootiga. Hadda waa u jeediin wax yar noo dhiman macnaha inuu si fiican isku dhex galo. Gacanta wax yar iga dhigdhiga waxaan ku soo daray bur. Haddana wax yar dhigdhig kala dareemay saliid yar ku soo darsado meel dheer ah ma ka badani saliida. Waa u jeediin isla markiiba uu kala foqo jiliciisa. Wax yar saliida ku soo shubayaa weelkii aad ku ridi lahaay macnaha intaad ku ridin koor wax yar saliida marinee. Haddana marka ku ridid burka korkiisa wax yar saliida marinaysa. Meela dhiganayna insha Allah. Maadaama chicken aan dhexda ka gelinayno rootiga, waxaa halkan ku haysanaa 1 kiilo oo digaaga laf la'aanta ah, chicken breast meesha ku qoran yahay waa u jeediin. Asagoo sajal ah waaye. Supermarket-yada laga helaa. Firjeerka ka soo bixiyay zaa'id wuxuu yahay dhagax. Waa u jeediin waa fujila ahay. Danta waxay u qasbaysaa marka inaan meel dhigo inta oo maxaa la dhahaa oo barafka ka fuqaayo ama dhiganaya. Barafkii wuu ka soo fuqay waa soo jarjartay intaas ma aana soo duubin. Markaan karsanayna bas idin duubayaa saliid yar aana badnayn. Waxaa ku soo shubanaysaa digsi saliid badan maya. Waxaa ku soo darsana marka chicken-kii ama digaagii. Digaaga aan idin sheegay hadaa 1 kiilo ahaa. Waxaa isticmaalayaa kiilaha nus kiilo aan kala jeedaa. Baakadkaas dheer u jeedin waxaa ku jiro 4 cad ama 4 gabal oo waaweyn oo digaag ah oo laf la'aan ah. 2 cad ayaan ka isticmaalayaa iyo wax yar. Nus kiilo ahaana marka u qiyaastay intaas ani. Qaybta kalena meela dhiganayaa. Mideeda kale haddii aad digaaga mar firjeerka ka soo bixiso oo ku dhalaalo oo biyaha barafka uu ka baxo
ha isku dayin inaa mar labaad ku celiso didi kale wuu kaa turturaa macnaha wuu intuu jilca aad u jilco turturaa asaga dhan. chickenkii markii xoogaa ee noo soo cadaatay waxaa kusoo darsanay waa ujeediin basasha aaday yani ama ka hormarso ama kadib marso waa isku mid un. waxaa kusoo darsaday sidoo kale qaada haafkeeda oo huruud ah iyo qaada haafkeeda oo cusbo ah. cusbada waxay ku xirantahay mar walba waxa adiga aad samaysanaysid. haddii nus kiilo ee tahay qaada haafkeeda, haddii yacni kiilo iyo ka badan ee tahana qiyaastaada ku maamulayso. haddaad haysin huruud waxaa ku bedeli kartaa qaada haafkeeda oo shiishiid ah si midabka cadka ah ee chickenka uu leeyahay xoogaa yar uu kaaga doorsoomo oo midab yacni dahami ama guduud xigeen ah kugu soo baxo. waxaa kusoo darsaday saad ujeediin hal qaado oo bur ah maadaama rootigii uu qallayl yahay chickenkana ama digaaga uu qallayl yahay. 2 qallayl ma isqaado 2 qallayl la iskuma dari kara macna. marka burka waxaa lagu darayaa si xoogaa suugo yar oo dhacaan leh uu u noqdo. bur iyo caana lagu darayaa. burka iyo caanahan asagoo yacni qoyaan zaa'id leh loogama dejinaayo waxaa laga rabaa dhiin meel dheer inuu yeelo ama dhacaan meel dheer inuu yeelo madaa la rabaa. waa ujeedin hadda suu noo soo noqday wuu noo soo qalalay. waa dijirabna waxaa kusoo darsanay kajabkaas ujeediin ismaarta kajab aa lahaa zaa'id u kulul yahay. waxaa rabaa kuleel meel dheer inuu ii yeelo isagana. waa intaasoo kaliya ujeedkayga maadaama basbaas yani aana ku darsanin. guduud yarna wuu igu yeelayaa dhadhan kalena wuu igu yeelayaa midabkana waxaan kala jeedaa kuleel yarna wuu igu yeelayaa. ha iska badinin haddaa isticmaalaysid kaas. hadda saasayba diyaar noogu taabo chickenkii. waxaa kusoo noqonay rootigii saa ujeediin wuu soo kacay. burka wuu soo kacay. waa isku celcelinaynaa hawada ka bixinaynaa oo gashay. zaa'id u jilicsan yahay rootiga. haddaa adkaysid markii aa xashaysid waxaa waaye wuu ka adkaana hadhow markii uu yacni aad dubtid kadibna. rooti jilicsan haddaa rabto marka koowaad waa inaad jilcisaa. jileecan inuusa kaa noqonin sidii oo maxaa la lahaa mid kala daadaadanaya. waxaa sameeyey hal xabo oo dheeraa ka dhigay waa dhuudhuubiyey. waxaa rabaa ani rooti kuuskuusa inaan sameeyo. rootiga qaabo badanaa loo sameeyaa sooma dheeraa loo sameeyaa warwareegaa loo sameeyaa kuuskuusaa loo sameeyaa hadbana shaqadaa loo yeeshaa. marka ani midka hadda arab inaan sameeyo waa ujeediin qaabkaas u kuuskuusanayaa. mar walba oo yacni aan gabal gooyana waxaa sameynaa afkaan ka laabaa qaybtii hore si ay iigu sinnaato. dhawaad wuxuu ii sameynayaa 15 xabo meelahaas camal ii sameyso 3 bakeeri oo burka ah. intaasaan ka sameynayaa. waxaa sameynaynaa marka gabal walba soo qaadaa waa fidinaa si hadda ujeediin gacantaa ku fidinayaa. chickenkii ama digaagii aan soo qaadanaa qaado waa ku cabiranaa dhexda ooga shubaya kadibna saa ujeediin oo kuuskuusaa. mid labaadaa sameynayaa saa si fiican iskula aragno. tartiibtaada gacantaa ku fidinaysaa zaa'id in fidisidna lagaama rabo inuu buurbuur ahaadana lagaama rabo. chickenkii soo qiyaasna ku wad chickenka hal qaadee hal qaado ku wada wad. haddii kale waxaa laga yaabaa bur inuu kuu soo haro chickenkan uu ka dhamaado ama waxa dhexda aad ka gashanaysa hadday qudaar tahay hadduu hilib yahay hadduu wax kale yahay. marka koowaad qiyaasta ku soco. waa soo wada dhammaysanay. waxaa sameynayaa marka intaan dabka saarin ka hor rootiga kor waxaa ka marinayaa caano booro aan soo qastay. qaabkan aan hadda arkaysaan ayaa kusoo quruxsanay. eftaasaa ujeediina anay qaas iyo taama fahanteen special for me. waxaa kuleeyahay soo dhawow walaal. muuqaalkan intaasa ku gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.